tilmaamay inahu bima tacmaluuna basiir baa ilahay yidhi inahu bima tacmaluuna basiir almuraaqaba inaad ogaatid wax kastoo aada samaynayso ilahay inuu ku arkayo walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu cadama arukuuni ila dalama inta wax dulminaysa inaad uhiilinin madaxweyne in adeerka qabiilka haddaad uhiiliso dulmigoodaad qaadaysa dadka wax dilaya haddaad uhiiliso dilkoodaad ka qeybtay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar baa ilaha yidhi war ha weecanina kuwa dulmiga samaynaya oo naariyo idin haleeli aqimi salaata arafi salaada ooga intaa waxaa raaco ilaahay leeyahay sabra wasbiruu fain allaha laa yudiicu ajra lmuxsiniin waayo wadada markaad ku toosnaato qodxa badan baad la kulmi laakiin waxaad u baahan tahay maxay si aada u suganto inaad sabirtaa baad u baahan tahay ilaahay subxaana wa tacaala haddana wuxuu kasii waramaya aayaadka ku xiga qiyaame iyo waxaa dhici doona geerida xasuusnow haddaad geerida xasuusantay waa toosnaa waayo geerida garan maysid gaarigaa ka horeeya inuu shil ku geli tareelle inuu kaaga kor mari garan maysid geerida xasuusnow qiyaamuhu yuu kaa libdhin haddaad qiyaamaha ilowdo adduununu hortaada yaallo waagu markuu beriyo barnaamijkaad la soo kacdaa inuu yahay adduunun hadduu noqdo oo aada ilowdo alxamdu lilahi aladi axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur qofka muminkii markuu soo kaco wuxuu xasuustaa in jaanis kale la siiyey waxaa mahad leh ilaaha nafta igu soo celiyey geeri dabadeed isaguna loo noqonayo wa ilayhi nushuur qiyaamaha ilaabina aayaadku waxay kaloo ina farayaan waxyaabaha lagu toosnaaday asbaabta waxaa ka mid a alamru bilmacruufi wanahyu can lmunkar muxaadaraad badan oo hore duuban waa helaysaan oo asbaab alistiqaama ah ama asbaab athabaati cala diin labaduba iyagoo duuban bay ku jiraan nadka ilaahay waxaan ka baraya subxaana wa tacaala annaga iyo idinkaba dembigeena inuu dhaafo dembigii waalidkeen dhaaf intaynu ka naxayna dembigooda inuu dhaafo ubadka iyo caruuraha iyo haweenkeen ilaahay inoo toosiyo dalkeen iyo dadkeeni dad quman in alla ka dhigo dantooda aakhir iyo adduunba in rabbi tusiyo kuwii toosnaada ee jidka toosan ku toosnaada in rabbi inaga yeelo dariiqa toosnida in rabbi ina xasuusiyo iyo jidka lagu toosnaanayo inuu rabbi kuwa diinta ku sugma inaga yeelo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa ku ducaysanaya ilaahu qalbigayga diinta ku sugay inta rabbi diinta qalbigooda ku sugay in rabbi inaga yeelo sala allahuma calaa muxamadi wacala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi lcaalamiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن درسك ولا لضت المامين إن كلماتك لغير هذا سو شاقي والاستقامة استقامة دين الصومالي سيود الدوين وقمانان inaad qumanaatid toosnaan ereygu qaama buu ka yimi alistiqaama marka waa toosnaan alictidaal walistiwaa toosnaanta maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa iimaanka iyo camalka saalixa inaad ku toosnaatid alistimraariya inaad joogtaysid wanaagga inaad noqonin qof weecweecanaya carabtu inta badan waxay dhahaan ka rawaqaani thaclab bay sheegaan waxay yidhaahdaan baasha la yidhahda dawacadu waxay ugaadhsanayso toos uma abaarta bay yidhahdaan way dhabacataa dabeetana way u warwareegtaa bay yidhahdeen sidii waxaan toos u soconin waxaa laynaga reebayaa markaa weecweecashada waxaa laynaga rabaa inaynu qumanaano oo diinta ku qumanaano oo ilaahay jidkiisa ku toosnaano ilaahay intaynu rabbi kala kulmayno qumanaantu waxay u baahan tahay dadaal badan iyo aqoon iyo cilmi walidalik ba waxay yidhahdaan min طabci اlinsaan aadanaha dhaqankiisa ama abuurkiisa waxaa ka mida bay yidhaahdaan atadabdub sensidual inuu socdo weecweecasho
bini aadamku bay yidhaahdaan dareemadiisa iyo noloshiisa inuu joogteeyo waa ku adagtay wuxuu doonaba ha noqdo shaqo ha noqoto mashaacirta iyo dareenka iyo ixsaaska ha noqdo nashaadaadka iyo activitygaad qabanaysa ha noqoto bini aadamku joogtaynta inuu waxaa joogteeyo wax fudud maaha soomaaligana isaga dhagaxba kaga adag maxaa loo joogtayn kari waaye kow waa mawduuc alimtixaan waa meesha laynagu itixaamay ee la rabo ma ku guulaysanayna mise waa ku dhacaynaa sidaa laynoo abuuray waxaana lagu talagalay in layna itixaamo aadanuhu wuxuu leeyahay shahwaatu nafs waxyaabadan oo naftu ay jeceshahay waxaa kaloo ku xeeran shayaaiin اljini walins kuwa dadka lumiyo badan oo bini aadamkana ka mid ah jinkana ka mid ah bini aadam dadka lumiyo tiro badan ayaa kugu xeeran shayaankii shayaanka ahaabaa kugu xeeran haddaba intaasoo dhan si aad uga guulaysan lahayd baa isweydiinta leh waxaana laynaga rabaa inaan naftu inaga bixin ilaa iyo inagoo muslimiina mooyaane laba aayadood oo fi kitaab illahi ku yaala suurat ali cimraan iyo suurat albaqara ilaahay muxuu leeyahy fi suurat albaqara ya baniy in allaha اصطafى lakum الdiin falaa tamuutuna ila waantum muslimuun fi suurati ali cimraanna ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutuna ila waantum muslimuun falaa tamuutuna iyo walaa tamuutuna ila waantum muslimuun ilahay wuxuu ina leeyahay ha geeriyoonina idinku aan muslim ahayn geerida we don't know garan mayno goora imanayso adoo sii socdaa gaari ku jiidhi ma wadnaha iskaa taagi ma maalmaad soo bukaan doonta garanmaysa saaad u dhimanayso mar haddaanad garanayn saaad u dhimanayso macnaheedu waxa weeyaan noloshaada toosnow ha geeriyoonin baa lagu yidhi adigoo maxay aan muslim ahayn yay geeridu kuu imanin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ba fi suurati alxijrina ilahay leeyahy rabbigaa caabud inta geeridu kaaga imanayso haddaba maadaama ay noloshu sidaa tahay waxaynu u baahan nahay inaynu in badan ku xisaabtanno war ma toosan nahay in badan inay isweydiino aqoonta ah sidee loo toosnaada in badan isweydiino waa maxay asbaabta kugu dhiiri gelinaysa ama kugu xejinaysa inaad toosnaato weliba cajabta nafta waxaa ku tusi kara nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay basharka ku ka doortaya ayaa waxay saxaabadiisi tilmaamaysaa umu salame iyo anas ibnu malik iyo waxa ay tilmaamayaan saxaabadii nebi maxamed ducooyinka nebi maxamed umu salama markii la weydiiyey gurigaaga markuu joogo waxa ugu badan uu nebi maxamed ku ducaysta waa maxay waxay ducadan soo socotay sheegtay anas ibnu malik wuxuu isaguna leeyahay yuksir nebigu wuu badin jiray inuu yidhaahdo maxay ya muqaliba alquluubi thabit qalbii calaa diinik ilaaha qalbiyada gegediyow ya muqaliba alquluub ilaaha qalbiyada gegediyow thabit qalbii calaa diinik ku sug diintaada qalbigayga buu nebi maxamed ku ducaysanaya ilaahu weecweecshadaygaa ilaalihay ilaahu isug sida badan habaadka iyo istiqaamadu isku macno dhadhow bay tilmaamayaan markaasaa saxaabadii waxay dhaheen yaa nabiy allahi aamanaa bika wa bima ji'ta bihi fahal takhaafu calayna waanu ku rumaynay adiga iyo wixii aada la timiba waanu rumaynay ma waxaad nooga cabsi qabataa wax miyaad nooga cabsi qabtaa wax kale wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa su-aasha dad badan rag badan baa isle haddaad war diintana waad garanaysaa ilaahayna waad garanaysaa maadaa gaaloobaya ama maadaa xumaanaya wadaado badan baa dhulkan yimi oo is yidhi waa riyaad saalixiinka iyo qur-aankaba waad soo dhigatay ma gaal baa wax ku yeelaya rag badan baa libdhay oo aan lahaynin imika meelay ku dambeeyeen sababta waa maxay naftooday kalsooni bideen waxay is yidhaahdeen war waad isku filan tahay badda se markuu dhumbaday wuu isku filaan waayey markii badda nin waliba yimi isku filaanshihii waa la waayey saa daraaddeed bay saxaabadii waxay leeyihin ilaahay rasuulkiisiiyo waanu ku rumaynay wixii aada la timina waan rumaynay miyaad noo cabsi qabtaa
nebigu wuxuu ku yidhi nacam ina alquluuba bayna isbacayni min asaabic illahi